بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. waxaan qaadan doonaa casharkii ugu dambeeyay ee jabtarkeena inoo socday oo ku saabsanaa an overview of basic statistics. casharkan waa casharkii saddexaad ahna kii ugu dambeeyay ee jabtarka. waxaan qaadanay laba cashar oo hore oo casharkii koowaad aan ku qaadanay saddex section oo kala ahaa aasaaskii cilmiga statisticska iyo qeexitaanada cilmiga statisticska iyo sidoo kale waxaan ku qaadanay qeybaha uu kala baxo cilmiga statistics. casharkii labaad waxaan ku qaadanay muhiimadda uu leeyahay cilmiga statisticska iyo fiildiyada amase culumta uu la xiriiro. maanta waxaan qaadan doonaa wax loo yaqaano limitations of statistics, xuduudaha uu leeyahay statisticska ama waxyaabaha uu ka xadidan yahay amase si guud hadaan dhahno ceebaha statisticska uu leeyahay, iyo sidoo kale qeyb kale oo qeybtan noogu xigta oo ka hadli doonta asbaabaha aan u baran doono amase asbaabaha ay tahay inaad u baratid cilmiga statisticska. marka intaanan casharka gelin ka hor si casharka usoo kaa xirmo oo aad jabtarka si fiican ugu fahantid labada casharo ugu dambeysay waxaan soo dhigi doonaa insha allah qaybta descriptionka ayaan soo dhigi doonaa amase video qaybta ka hooseysa ayaan soo dhigi doonaa linkigiisa marka inaad soo daawatid si aad si fiican ugu fahantid jabtarkan oo dhammaystiran maadaama uu yahay aasaaska cilmiga statisticska. qof kasta oo raba inuu cilmiga statistics wax ka fahmana ay muhiim u tahay. intaas marka uu gudbo jabtarka iyo waxyaabahan maanta baran doono wixii aan soo baranay waxaan ka codsanayaa sidoo kale inaad subscribe saartiin channelka si aad ula socotiin casharada aan soo dhigno insha allah oo isbuuclaha. intaasna waa codsi aan galno casharkeena maanta. qaybta ugu horeysa waxaan uga hadli doonaa insha allah waxa loo yaqaano limitations of statistics amase xuduudaha amase waxyaabaha uu statisticsku ku xadidan yahay. waxaan hore usoo sheegnay in statisticsku loo adeegsado meel kasta oo ay ka jirto hawl bini aadam. marka anagoo og in statisticska loo adeegsado meel kasta oo hawl bini aadam ka jirto haddana waxaan leenahay ma ahan xadidaad la-aan ama ceeb la-aan ma ahan. kuwa soo socda ayaana kamid aha. qodobka koowaad wuxuu yahay statistics is not suited to the study of qualitative phenomena. statisticsku kuma habboona diraasada amase barashada waxyaabaha ka hadla tayada xogta ama tilmaanta shayga. waxyaabaha ka hadla statisticsku kuma wanaagsana. statisticsku waxay la dhaqantaa amase la tacaamushaa waxa loo yaqaano xogaha tirooyinka ah ay la tacaamushaa. waxaana loo adeegsan karaa kaliya diraasadaha amase baaritaanada waxyaabaha kuwa oo aan usoo bandhigi karno qaab tira ahaan ah. tusaale ahaan haddii aan rabno inaan baarno koox dad ah daacadnimadooda amase faqrinimadooda amase tusaale ahaan aan baarno waddan culturekiisa ama dhaqankiisa oo kale tusaale ahaan inaan baarno haddii aan rabno waxyaabaha noocaas waxa loo yaqaano qualitative variables. sidaa darteed baaritaanka waxyaabaha noocaasa oo tusaalayaasha aan soo qaadanay kuma wanaagsana statistics kuma wanaagsana. statisticsku waxay ku wanaagsan tahay xogaha aan usoo bandhigi karno qaab tira ah. waxyaabaha aan usoo bandhigi karno ayay ku wanaagsan tahay. qodobka labaad amase limitationka labaad ee statistics uu leeyahay ayaa waxay tahay statistics does not study individuals. statisticsku daraasa kuma sameyso xogaha la xiriira shakhsiga amase shakhsiyad haddaan haysano oo kale statistically wax micne ah ma sameynayso. statisticsku waxay la xiriirtaa celceliska xogta ama celceliska waxyaabaha aqoonsi gooni ahna ma siiso. xogta la xiriirta xogaha la xiriira ashqaasta goonida ah ma siiso. sidaa darteed maxaa leenahay xogaha noocaasahi kama koobno wax loo yaqaano statistical data. baaritaan statistic ahna haddii la sameynayo baaritaan statistic haddii la sameynayana wax micno ah ma yeelanayaan. tusaale ahaan haddii aan haysano wax soo saarka beereed ee waddan amase wax soo saarka warshadeed ee waddan amaseba dhaqaalaha uu leeyahay amase waxa loo yaqaano national income of a country haddaan haysano tusaale ahaan wax micnaha ma sameynayso. bis waxaan dhigi karnaa waddan hebel wax soo saarkiisa warshaduhu waa intaas, wax soo saarkiisa beeruhu waa intaas, waxa loo yaqaano dakhliga qowmigiisuna waa intaas oo kale ayaan dhigi karnaa. waxa kaliya oo ay macno sameynayso waxay tahay markii lala barbar dhigo variable amase shaygii aan individualka aan soo qaadanay lamid ah oo kale marka la barbar dhigno. oo tusaalahan haddaan isbarbar dhigno wax soo saarka waddanka wax soo saarka beeraha ee waddanka Soomaaliya iyo wax soo saarka beeraha Bangladesh amase wax soo saarka warshadaha Bangladesh iyo wax soo saarka warshadaha Soomaaliya amase national income-ka Soomaaliya iyo national income-ka Bangladesh haddaan isbarbar dhigno oo kale micno ayay sameynaysaa xogta noocaas. laakiin haddaan haysto
one individual value haddaan haysto oo Somali income bis aan haysto Somali national income bis aan haysto kale micno ahaan ma ii samaynayso limitationka saddexaad ee statisticsku leeyahay ayaa wuxuu yahay statistical laws are not exact xeerarka statisticsku ma ahan kuwo boqolkiiba boqol sax ah ma aha marka laga soo tago xeerarka la xiriira culumta dabiiciga ah xeerarka statisticsku waa kuwo qiyaasyo kaliya ah ee ma ahan kuwo sax ah ma aha marka lagu saleeyo xeerarka marka lagu saleeyo qaab statistical analysis ah waxa kaliya ee aan uga hadli karnaa ama qaab kaliya uga hadli karnaa ayaa waxay tahay qaab ihtimaal iyo fursad ah laakiin ugama hadli karno qaab hubanti ah oo result ku soo baxday isticmaalka xeerar statistics ah ma dhihi karno natiijadaasi waa sax boqolkiiba boqol ma dhihi karno sidarteed maxaa leenahay gabangabooyinka amase resultska kusoo baxa hab statistica kusoo baxahay ma ahan kuwo si guud sax ah ma ahan laakiin waxay sax ku yihiin celcelis ahaan ayay sax yihiin oo tusaale ahaan haddii aan samaynayay saadaalin ku saabsan shacabka Soomaaliyeed ilaa iyo amase haddaan samaynayo aan dhaho saadaalin ku saabsan shacabka Soomaaliyeed ilaa iyo 2030 oo saadaalinteedii ay ugu soo baxdo in shacabka Soomaaliyeed 2030 ay noqonayaan tusaale ahaan 25 milyan inay noqonayaan haddii ugu soo baxdo saadaalintaas aan sameeyey ama statistical lawskaas aan maray markii aan saadaalinta samaynayay resultiga iga soo baxday man dhihi karo boqolkiiba boqol sax waaye oo 2030 markii la gaaro ma haysto guarantee ah in shacabka Soomaaliyeed ay noqonayaan 25 milyan inay noqonayaan yani wax oo boqolkiiba boqol huba ma aha limitationka ugu dambeeya ahna kan afraad ee aan kusoo qaadan doono casharkeena ayaa wuxuu yahay statistics is liable to be misused statisticska waa la beeni karaa amase statistical result oo lasoo bandhigay waa la beeni karaa laga yaabee xuduudda ugu muhiimsan ee statisticsku inay tahay in ay waajib tahay inay isticmaalaan dad khibrad u leh sida ay xigmadani leedahay xigmaddu waxay leedahay hababka statisticsku waa aaladaha ugu khatarsan markay ku jiraan gacan qof aan khabiir ahayn sidaa darteed maxaa leenahay isticmaalka hababka amase aaladaha statisticska ay isticmaalaan dad aan tababar iyo khibrad u lahayni waxay keeni kartaa conclusionno amase gabangabooyin qaldan ayay keeni kartaa sidoo kale ninka loo yaqaano King ayaa wuxuu yiri statisticsku waa sida dhoobada oo kale taa oo qofku uu ka samayn karo wax wanaagsan ama ka soo saari karo wax wanaagsan ama wax xun uu ka soo saari karo sida uu qofkaasi rabo yani waa statisticsku waa aalad oo laba afla ah oo qofku wax wanaagsanna ka soo saari karo dadka qaarna ay qaab khiyaana xogta ugu soo bandhigaan qaybta labaad ee casharkeena ahna sectionka ugu dambeeya ee chapterkeena ayaa waxaan u hadli doonaa why should you learn statistics waa maxay sababta ay tahay inaad u baratid statisticska waxaan leenahay waxaa jirto 5 sababood oo waaweyn kuwa oo kuu kalifaya in aad barato statisticska sababta koowaad waxay tahay inaad awoodo soo gudbinta baaris waxtar leh si aad u awoodo soo gudbinta baaris waxtar leh waxaan leenahay annagoon isticmaalin statisticska aad ayay u adkaanaysaa inaan gaarno go'aan ku salaysan xog laga soo aruuriyey mashruuc baaris ama research project pointiga labaad oo aadka u muhiimka ah oo ku saabsan researchiga oo ay tahay in la sameeyo ayaa wuxuu yahay in qofka researcherka ama baaraha ahi uu ogaado habka statisticska ee uu isticmaalayo intuusan soo aruurin amase intaysan soo aruurin xogta sababta labaad ee ay tahay statistics in loo barto ayaa waxay tahay in uu awoodo qofka inuu akhriyo joornaalada inta ugu badan joornaalada waxaad arki doontaa qaab statistics ayaad ku arki doontaa waxaad arki doontaa qayb loo yaqaano qaybta natiijooyinka qaybtaas natiijooyinka markaa haddii aadan fahamsanayn statisticska macluumaadka ay ka kooban tahay qaybtaasi waxay kula noqonayaan wax micno darro ah ayay kula noqonayaan
sababta saddexaad ee statisticska loo baranayo ayaa waxay tahay in aad sii hormarisid fikirkaaga si cumqi ah inaad sii hormarisid sidoo kale inaad hormarisid ama baratid wax loo yaqaano analytic skills xirfadaha taxliilinta inaad baratid ama sii hormarisid. qodobka afraad amase sababta afraad ee statisticska aad u baranaysid ayaa waxay tahay inaad noqotid macmiil wax og amase waxa la socda inaad noqotid. haddii aan sharaxaad kooban ka bixiyo qaybtan ama sababtan, waxaan hore usoo aragnay ama usoo baranay markaan ka hadlaynay statisticska limitationska uu leeyahay inay kamid ahayd in xogta statisticska la beeni karo. tusaale ahaan yaa beeni kara marka xogta statisticska yaa beeni kara? statisticska haddii si qaldan xog statisticska qaab qaldan loosoo bandhigo qofka beeni karaa waa qofka yaqaana cilmiga statisticska kaas oo fahmi kara waxyaabaha meelaha ay wax ka qaldan yihiin oo kale dareemi kara. sidoo kale informed consumer inaad tahay waxay kaa saacidaysaa inaad qiimeysid xog kasta oo lasoo bandhigo, sidoo kale inaad evaluation ku samaysid articleska iyo waxyaabaha lamid ah. haddaan u gudubno sababta shanaad taas oo aad u baranaysa statisticska waxay tahay lahaanshaha aqoon statisticsku waxay kaa saacidaysaa inaad ogaatid marka aad shaqaaleysiinaysid qof statistician ah amase khabiir statistician ah oo qof khibrad dheeraada u leh cilmiga statistics. waxaan ognahay markii gaari kaa halaabo waxaad hore ka aadaa qof makaaniga oo yaqaana gaariyaasha sida loo sameeyo. haddaad rabtid inaad guri dhisatid qof engineer aad raadsataa. sidoo kale waa inaad ogaataa marka aad u baahan tahay qof statistician ah amase khabiir statistician ah markaad u baahan tahay waa inaad ogaataa. si aan usoo koobno marka shanta sabab ama shanta qodob ee hore aan kor kusoo xusnay waxay noqonaysaa soo koobitaankeeda haddaan soo koobno waxay noqonaysaa inaad si waxtar leh usoo gudbisid research amase baaris inaad si waxtar leh usoo gudbisid. sidoo kale inaad akhrisid joornaalada aadna qiimeysid articleska. sidoo kale sababaha aad statistics u baranaysid waxaa kamid ah inaad sii hormarisid fikirkaaga qaab cumqi ah iyo sidoo kale aad sii hormarisid waxa loo yaqaano xirfadaha la xiriira taxliilinta. sidoo kale waxaa kamid ahayd asbaabta statistics aad u baranaysid inaad u dhaqantid sida qof amase macmiil wax og oo wax la socda ama macluumada si fiican u yaqaana. iyo sidoo kale inaad ogaatid marka aad u baahan tahay in aad shaqaaleysiisid qof statistics yaqaana amase statistical help markaad u baahato ee aad u baahan tahay qof statistician ah markaad shaqaaleysiinaysid. sidoo kale markaad u baahan tahay waa inaad ogaataa oo kale. marka sababahaas aan soo sheegnay iyo sababa aad usii tiro badan oonan meeshan kusoo koobi karin ayaa kamid ah asbaabaha ay tahay in aad statisticska u baratid.